بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، xalaqadan waa xalaqadii lixaad oo inoogu dambeysay mowduuceennii taxanaha ahaa oo aan uga hadlaynay addoonnimada oo alla keliya loo keli yeelo, yacni allah oo keliya addoon loo noqdo. waxa ay tahay addoonnimo, waa maxay allah oo keliya addoon loo noqdo, waxyaabaha keenaya in allah oo keliya addoon loo noqdo ayaan hor uga soo hadalnay. waxaan kaloo ka soo hadalnay addoonnimadu inay tahay sifo ay wada leeyihiin makhluuqaadkao dhan, waysan ka wada bixi karin. si gaar waxaan uga soo hadalnay addoonnimada insaanka oo in ay ka duwan tahay addoonnimada makhluuqaadka kale ayaan ka soo hadalnay. alxamdu lilah, maanta waxaan soo gaarnay xalaqadiina noogu dambeysay oo cunwaankeeduna uu yahay miraha qofka uu ka helayo markuu allah addoon u noqdo. waa maxay miraha uu helayo qofka allah oo keliya addoon uu u noqday? ilaahay baan ugu mahadinaynaa, uguna shukrinaynaa mirooyinkaas laga helayo allah oo keliya addoon loo noqdo. ilaahay wuu noogu daaqay, waa nagu galladaystay. wax aan dhadhaminay oon shucuurnay wuu ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga dhigay. miraha ugu horeeya oo qofka uu ka helayo addoon noqoshada allah uu addoon uu noqday waxaa weeyaan allah inuu weligiisa uu noqdo, allah inuu u gargaarayo, allah inuu jeclaanayo qofkaas, arrintiisii oo dhan allah inuu la wareegayo uu maamulayo. waa cajiib weeyaan. qofka markuu shirkiga ku jiray oo mushrikiintaasna yacni xisbigoodii iyo isbahaysigoodii uu ku jiray waxa weeyaan ma ahayn ficlan xisbi iyo isbahaysi uu qofkii ku qancayo oo degan ma usan ahayn. laakiin waxaa la yaab leh qofka markuu ka soo baxo gaalnimada, markuu ka soo baxo iyo jaahiliyadda iyo shirkiga, oo tawxiidkana allah uu u keli yeelo. aayaddii ahayd faman yakfur bitaaquut wayu'min billahi faqad istamsaka bilcurwati lwusqa lanfisaama laha wallahu samiicun caliim. waxaa lagu xijiyey allahu waliyu aladiina aamanuu yukhrijuhum min aldulumaati ila annuur. allah waa u gargaaraha kuwa isaga rumeeyey, yacni isagaa jeclaanaya, isagaa arrintoodii tawalinaya, yacni waxna uga baahan maayaan dadkay ka soo baxeen, waxay uga baahanayaan malaha. dad baa waxaa laga yaabaa haddii aad qabiilkaagii iyo qoomkaagii aad ka baxdid, yaa kuu gargaaraya, yaa wax kuu qabanaya, yaa arrintaada tawalinaya. allah marka walaayadiisi qofka inuu helayo, uu ku guulaysanayo oo uu dareemayo, waa miraha ugu horeeya weeyaan. walidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad kale wuxuu ku yidhi alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wakanuu yattaquun lahum albushraa fi lxayaati اddunya wafi اlaakhira laa tabdiila likalimaati illahi dalika alfawz alcadiim. alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun. dadii how baraaruga, awliyadii allah dushooda ma ahaanin wax cabsi iyo wax muruga dushooda ma ahaanin. awliyada allahna kuwo kale ma aha, waa kuwa isaga rumeeyey oo addoommada u noqday oo isaga keligiisiina ka baqaya. kuwaasi bishaare ayaa u sugnaatay, wax bedeli karana ma laha.
yacni walaayadaas iyo cabsi la-aantaas iyo murug la-aantaas oo ilaahay uu u ballan qaaday wax bedeli kara ma laha. sidoo kale allah wuxuu qur-aankiisa uu ku sheegay qofka weli ka dhigta allah iyo rasuulkiisii mu'miniinta, waman yatawalla allaha warasuulahu waladiina aamanuu faina xisba allahi hum lgaalibuun. haddaan uga gudubno qodobkaa isaga ah, qodobka labaad aan soo qaadanayna waxaa weeyaan oo miraha laga helayo marka allah oo keliya addoon loo noqdo, alcizatu alxaqiiqiya, sharaf oo dhab ah qofka inuu ma arkaysa waxa uu helayo. allah qur-aankiisa wuxuu ku yidhi walilahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun. cizada iyo sharaftoo dhan waxay u sugnaatay allah iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta. wax aada ay ugu farxaan weeyaan, ay u dareemayaan runtii waxaa weeyaan si kasta axwaasha ha ahaato. qodobka saddexaad ama miraha saddexaad uu qofka uu ka helayo u keliyeelidda addoonnimadu alla uu u keli yeelo oo allah keliya addoon uu u noqdo waxay noqonaysaa allah subxaanahu wa tacaala inuu ku filnaado oo uu ka kaafiyo yacni acdaadiisa shuruurta shartoodao dhan. yacni kifaayat ullahi min shuruuri acdaa'ihi, allah inuu ka kaafiyo sharta cadowgiisii oo dhan, ibliis ha ahaado ama naftiisa ahaato ama gaala kale ha ahaato, ilaahay baa ka kaafinaya. qof ilaahay ku filan buu ahaanayaa. runtii waxaa weeyaan arrin ayadana aada iyo aad u qiimo badan oo wax aad aad lagu farxa ah. allah wuxuu qur-aankiisa uu ku yidhi alaysa allahu bikaafin cabdahu, alla miyuusan ahayn kii kaafinaya addoonkiisii oo ka kaafinaya sharta iyo dhibka cadowyadiisii oo dhan. wayukhawifuunaka biladiina min duunihi, waxay kugu cabsi gelinayaan wixii alla ka soo haray. laakiin qofka mu'minka kifaayadii ilaahay buu ku kalsoon yahay, yacni meeshaasuu ku degan yahay, xisnigaasuu ku jiraa, wuxuu ilaahay u qadaray ubaana ku dhacaya, isagoo ma arkaysa waxaa weeyaan dhahaya mar walbaba lan yusiibanaa ilaa maa kataba allahu lana huwa mawlaana wacala allahi falyatawakal ilmu'minuun. sidoo kaleeto ilaahay inuu ka kaafinayo sharta cadowgiisa ibliis, ilaahay qur-aankiisuu nagugu sheegay ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaan wakafaa birabbika wakiila. addoommadayda dushooda kuma lihid wax awooda kuma lihid, rabbigaa isagaa ku filnaaday wakiil inuu ka ahaado dadka addoommada u noqday, isagaa wakiil ka ah oo arrintoodii yacni ma arkaysa yacni la wareegay oo xilna ay ka saaran tahay wixii khayr iyo dan ugu jira ayagay ma arkaysaa. marka ibliis wuxuu ka qaadi karaa ma laha. miraha kaloo laga guranayo marka allah subxaanahu wa tacaala loo keli yeelo addoonnimada waxaa weeyaan xurriyad xaqiiqi ah. qofka xornimo xaqiiqi ah ma heli karo ilaa allah oo keliya addoon uu u noqdo. laakiin inta allah keyrkiisa addoon uu u yahay, hawadiisaba allaha ka dhige, qofkaas addoonnimo dulaysan buu ku jiraa. waxaa la yidhahdaa xataa nuunu lhawaani min alhawaa masruuqatun faidaa hawiita faqad laqiita hawaanan. hawaan oo dulinimada iyo xaqirnaanta iyo liidnaanta, hawaan ereygaas carabi ahaan nuunka ugu dambeeya oo ku jira yacni hawadii baa laga soo xaday oo hawadii ayaa nuunkaas wadatay baa leeyahay. marka haddii adiga hawadaada aad raacdid, qof hawadiisa raacaya aad noqotid, waxaad la kulmaysaa dulinimo iyo xaqirnaan baa la kulmaysaa.
marka xurnimada dhabta ah waxaa helaya kuna guulaysanaya qofka Allah oo kaliya adoon u noqday. waana يعني أرين قفك إلهي أقول لك حرية الحقيقة إنه قاته وغير الله غير كيس إنه سن سدلين وسن رالي كن نقول إنه أدون وهذا إلهي ساسو كدونيا. ولذلك هدتك الضعفاء وكتنازل حرية إلهي أوسيي أما أقوية ري ويكوه لكران يعني الله إلي كل ساعة بدأ أدوم ونقضان آخر يعني أرنتس لو عذر داري مايو بل إني جريمة أي تهي ضعف قاسي قفك وما أركيسا وحاو يكسفو وحريديسي ما أركيسا وحاو سوء شنوايو إكرامديسي وحلو عذر داري قفك من نغنيسو مركا الله سبحانه وتعالى إيو دينتيسا إيو توحيدك يعني كل waxayna dhaxal siinayaan ama ay ma arkaysa waxa weeyaan ay nagaarsiinayaan oo aan ka heli doono Ilaahay aan ka helayno in xurriyad xaqiiqi ah martay min kulli ma si wixii Ilaahay ka soo rodan waliba yaani min ubuudiyati kulli ma siwaahu oo qofka duleynaysa oo aad u xaqiraysa ayuu qofkii ma arkaysa waxa weeyaan oo kaga xoroobaya kaga guuleysanaya. mid kale waxa kale oo kamid ah الحياة طيبة وعدم الخوف والحزن نضل وناكسا ودقنان له وولول يعبسي آن لهين أي قفك أكون ورانيا سيد هرب عن أصول شيقني الله وحبير من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قفك عمل وناكسا سمية عمل كاسو لب حقيسا كأهاضو isagoo laba ama isagoo dhadiga oo mu'min ah waxaan nooleynaa nolol wanaagsan oo Ilaahay u ballan qaaday qofkaas. wadaalika nolosha wanaagsanna waa nolosha qalbiga deganaantiisa iyo xasiloonidiisa iyo qanacsanaantiisa taas weeyaan maaragtay iyo xusida Ilaahay qofku markuu xuso ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub yani inkastoo ay tahay nafteeda mira gaar ay tahay tumaaniinada qalbiga وقفك او dareemay markuu Ilaahay uu xuso yaani hadana nolosha wanaagsan runtii waxa weeyaa oo farxad leh oo bashaashada leh halkaas way soo galaysaa maartay. wadaalika qofka yaani mirayaashaas aan soo sheegnay oo dhan hela oo ku hela u kaliyeelida adoonimada Allah uu kaliyeelo cid wax ka qaadi karta malaha cid dulaysan karta malaha wuxuu ku jiraa jannatu dunya buu ku jiraa sida laga soo wariyay dadkii caarifiinta mid kamid ah ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wuxuu yiri inna fi dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannata al-akhirah. adduunyada waxa ku jirta janno qofkii aan jannada adduunyada aan gelin tan aakhira ma gali doono. jannadaasi marka adduunyada wax kala ma aha waa qofka garashada Allah oo si fiican u garto oo Allah uu jeclaado oo Allah uu adoon u noqdo تاسا قفك وحي قلينيسا جنة دنيا قلينيسا يعني عريري يودن يولول يودن يورير يودن إلهي سبحانه وتعالى وكأمي يليا وكسافي يليا مد أقدم بيسون قصوا قبقبين وحاويان انتا صورنا الدنيا دي بي أهايين آخره إلهي سبحانه وتعالى qofkaasi wuxuu ku guuleysiinaya oo ku abaal marinaya yaani jannadiisi iyo raali aanshihiisi waana fawska iyo karaamada ugu weyn weeyaan. Allah wuxuu yiri wa'adallahu alladheena aamanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun min Allahi akbar ذلك الفوز العظيم. مركب بلنقات كاس الله سبحانه وتعالى ذاتك أدوامة أنقض وبلنقاذي إن جنديسي أي كواري دونان وقرياه وناكسن له وبيرها ما أركي سوبياشها وصعدان له ومررنتي أدو قيمة بدن قفك حتى وحكا حتى دوسن هالين
oo adduunkan dhib un ku noolaado ilaahay dartiisa loo dhigo oo jannadaas aakhira ma arkaysa uu geli doono dhibka adduunyada wax uu qiimo yeelanayo iyo wax ma arkaysa waxa weeyaan wax ka soo qaad ayuu noqonayaa maartay marka mirooyinkaas oo runtii farxadda iyo bishaarada leh ayaa uu qofka uu helayaa hadduu ilaahay adoon u noqdo dadkoo dhanna waxaan ugu yeeraynaa inay allah keliya adooma ay u noqdaan si ay u liibaanaan adduun iyo aakhiro mirooyinkaas qiimaha badan ay u guulaystaan ilaahay baanu ku mahadinaynaa yacni noo dhammaystiray mawduuceennii xalaqadii ugu dambeysay tan ay ahayd yacni intaas ayaan kusoo gabagabayno billahi tawfiiq wallahu aclam ma naqulu wakiil